Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta soo dhowaada meel walba aad joogtiin saaxiibada. Waxaan joogaa dhul deegaan ah oona cabirkiisu yahay booskii finti bar finti. Waa dhul finti bar finti oo cabirkiisu yahay, waana dhul aad iyo aad u fiican oo macquul ah sida hadda kaamirada ka arkaysiin. Dhulkaan oo ujeediin guryaha dhisan magaaladii Xamar waa tahay meeshaas arkaysiin magaaladii Xamar waaye. Waana dhul macquul ah oo nadiif ah, qiimihiisana jaban. Waxaa waaye dhulkan horta wuxuu ku yaalaa dhinaca Alfaraj marka la soo dhaafo. Daraad waxaan ka soo bandhignay boos laba jidle ah, maasha Allah, dad badan aad u daneeyeen. Qofkii calafku lahaa ayaa wixiina qaadanayo. Hadda meeshaan waxaan ka haynaa boosas markaa ku dhaynana ma ahan hal boos, waa boosas, laba boos, saddex boos, afar boos, shan boos, lix boos, sidii wax loogu heli karo aa loogu hayaa meeshaan asxaabta. Marka xaafadan xaafad shidan waaye. Booskeeda waxaa la galaa 6,500 ilaa 7,500 ilaa 8,000 sidii u soo kala sokeeyaan waaye. Dhulkaan waa weyn yahay, waa dhul aad u weyn, xaafad nadiif oo kala dambeyn iyo gudyo leh waaye. Waxaan i tusi doonaa xaafadda ilaa inta u jirto laamiga waxay u jirtaa ilaa 5 kiiloomitir. Waana dhul macquul ah oona nadiif ah oo maasha Allah ah oo kaali araga waaye. Marka waxaas dhici asxaabtana bal boosaska fintiga aad u daneeyaan, bal soo dhaweey qof alaala qofkii rabo inuu finti qaato. Masaajidkaas ujeediin waa masaajidka Alfaraj. Waa mari doonaa kaamiradan ku dhex mari doonaa. Dhulka saa ujeediin waa calaamaysan yihiin, waana deegaan xaafadaya ma ahan xaafad oo ku dhahay maahan waa goof, laakiin goof waa laakiin deegaan waa goof la deegaamiyey oo beledka loogu imaanayo. Meeshaas hadda zoom ka soo dhahay masaajidkaas ujeediin waa masaajidka Alfaraj. Meeshaas zoom ka soo dhahay ujeediin magaaladii Xamar oo dhan naga jirto. Meelahan hadda arkaysiin magaalada Xamar kor laga fiirsaa. Waa dhul macquul ah oona nadiif ah oona maasha Allah. Boosaska marka sida u soo kala sokeeyaan ayaa wax loo kala gadaa. Kuwa hadda ugu dambeeyaan oo kale waa 7,000 ilaa 6,500. Kuwa ka sii dambeeyaan oo kaleete waa 5,500 ilaa 4,500 ilaa 3,000 waa dhulka sii dambeeyo. Haddii aan dhahno dhulka isaga ka horeeyo meeqa waa 8,000, waa 9,000, waa 10,000. Macnaha sida ugu sii sikatid waaye magaalada. Meeshaas hadda zoom ka soo dhahay Xamar waaye. Waa dhinaca degmada Kaxda waaye. Dhulkaas arkaysiin dhinacii degmada Kaxda waaye. Waana dhul oo nadiif ah oona boqolkiiba boqol fiican. Meesha ujeediin waxa waaye shirkadda jaamacadda Hormuud meesha dhisanayso waa kaamirada zoom ku soo dheh. Marka waxaas dhici asxaabta bal qofkii alaala qofkii ka faa'iideysan karo. Dadka waxayna weydiiyaan inta badan dhulul oo deegaan noqon karo oona adiga lacag 2,000 ama galkaarayso oo kale ay dadka aad noo weydiiyaan. Wallaahi ani waa dadkaas oo sida baahidaas qabo oo kale ka mid ahay. Sababtoo ah anaba waa jeclaa dhul saas oo kale deegaan haddii la helayo. Laakiin waxa waaye dee qofkii wixii in la heli karo inaan la heli karin qofkii loo sheegaa. Haddii la heli karin waxaa la dhahaa wixii waa la heli karaa. Haddii aan la heli karin lama heli karo. Sababtoo ah waxaan la heli karin taa ku dhaw waa la heli karaa dhibaato ay leedahay. Marka asxaabta hadda waa soo baxnay. Kaamiradeena iyo anagii baawarka waa soo dhaqaaqnay ilaa inta ilaa xaggaa rabnaa bal inaan isku fiirino. Idinkana la aragtiin anagana aragno dadka kaleetana inaan la aragtiin. Magaalada dhulkan wuxuu jiraa ilaa 5 kiiloomitir. Wuxuu ku aadan yahay siinka dheer oo laamiga siinka dheer uu ku aadan yahay. Hadeertaan la hadlayno kaamirada ka arkaysiin oo sii socona waxaan rabnaa ilaa dhulkaas inaan aadno idinkana aragtiin asxaabta qaaliga. Marka aad iyo aad waa mahadsantihiin. Insha Allah wixii macluumaad dhulkan kala ugu baahatiin
bal diyaar aan nahay. Hadda waa soconaa ilaa waxaan maraynaa masaajidkaas oo jeedin Alfaraj. Dhulalka markay saan oo kale soo socoto oo kale waa kasii xoogo qiimihiisu waa kasii kordhaya sida dhulalka hore oo kale oo hadda qaybta kuwaan kasoo bilaabayn oo kale oo kasii lacag badnaa because marba marka aad soo sikatid dhulku wuu ka lacag badnaanaa, marba markaa kasii dambeysana dhulku wuu ka lacag yaraanaa. Dhulkan hadda ujeedin aad loo degan yahay, koronto leeyahay, biyo leeyahay, waa la keenay korontadiisa biyihiisa. Soomaalida waxaa markay wax gataan dee qofkii waxaa laga yaabaa inuusan haysanin wuxuu ku dhisa lahaa, marka wuxuu u baahan yahay sida uu helo wuxuu ku dhisa lahaa in wixii la sii raadiyo. Marka asxaabta marka dhulka inta badan Soomaalida way gadataa, qaarkood waxay ka raadiyaan bararsi ka raadiyaan, qaarkood waxay ka raadiyaan adiga qiimay ka raadiyaan. Marka dhulkaas saa arkaysiin masaajidka arkaysiin waa kahay masaajidka Alfaraj ni sheegaynay oo maanta dhan kaamirada oo zoomka nigu soo dhahay waa meesha hadda arkaysiin waay. Dhulkaas aa ujeedin waay masaajidkaas arkaysiin waay. Marka asxaabta aad iyo aad u mahadsantihiin saaxiibada nagu xiran, waxaan leenahay idinkana 100% insha Allah wax walba u baahatiin oo macluumaad kale tahay diyaaraan nahay. Waana la joognaa insha Allah waxay noo balanaa ani aad u jeclahay dadka inaan caawiyo sababtoo ah dhibaatooyinka dadka ijaarka ku jiraan waxaas waa dareemaa waana arkaa. Marka waxaas leeyahay qofka bal haddii wax loo awoodi karo u raadi. Qofkan waxaa jeclahay haddii uu rabo inuu isagana wax helo inuu wixiisa wax ku darsado oo wixiisa u dhaqaaqaan. Asxaabey aad iyo aad u mahadsantihiin inta ila socoto oo ila shaqeyso oo mar walba ila daawato. Waxaa laga yaabaa mararka qaarkood dhulkaas soo bandhigayo oo kaleete adiga inuusan ku anficin because waxaa laga yaabaa inuusan ku cajabinin qiimahaaga ahayn, laakiin aad heli doontid mar dhow oo kale qiimihii oo kaleete in aad heli doontid. Marka insha Allah waa rajeynaa waa ku socdaa insha Allah in waxaan ay mar un ka soo baxaan idinka naftirkiina waxyaale ay ka faa'iideysiin. Ugu dambeyntii dhulkan dukumiintigiisa ay wixiisa waa nadiif 100% waa la isku hubaa cid nadiif oo maasha Allah iskale wax dhibaato kama taagna. Wax alaal waxay ugu baahatiin oo macluumaadeena diyaaraan ku nahay waana mahadsantihiin insha Allah. Macluumaad kasta oo dhulkaas ugu baahatiin iyo dadkan waxay isugu jiraan iyo dad wax rabaan iyo dad aan wax rabin sababtoo qofka naftirkiisa waxbuu ku weydiinaa wixii markuu ku weydiiyo oo sheegtid oo kaleete oo haddana wixii u sharaxdo oo kale waxaa lagu leeyahay niyow saan waaye kan waaye maxaa qaldan. Adiga su'aalo badan lagu weydiiyaa oo adiga xitaa mararka qaarkood ay ka jawaab karaan su'aalahaasna maahan in aad adiga dhibsanayso laakiin dadka waxa meel waxa wax laga weydiiyaa oo bal ka waran meeshaas oo kale ka waran inta oo kaleeto saan. Marka warkaasna manigu daaliyaa dhib malaan Soomaaliya utiin. Ugu dambeyntii dhulkan oo aragteen masaajidkaas soo marnay masaajidka kor oo zoomka soo dhigeen waaye. Meeshaan ujeedin waa Alfaraj waaye wadadan toos waxay aadaa laamiga dhinaca siinka dheer ay aadaa waana dhul nadiif ah 100%. Asxaabta waxaan leeyahay insha Allah wixii kale macluumaad u baahatiin diyaaraan yahay tooskan saa ugu socoto laamiga daarta dhinacan waxaa ka jirto midnimo iyo taagan iyo ceelasha biyaha ka jiraan waana dhul macquul ah 100%. Insha Allah wixii kale macluumaad u baahatiin diyaaraan nahay. Ilaa laamiga wuxuu jiraa ilaa 5 kilomitir boosaskana siinii sheega waaye waa ilaa 7,500 ilaa 7,000 ilaa 6,500 waaye. qiimaha booska cabirkana boosku waa finti barfinti waa dhul finti barfinti waaye waana dareemi kartiin. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay lambarkayga waa kana wixii u baahatiin ila soo xiriira. Sidaas iyo nabadgelyo asxaabta muuqaalkane hal sii